waddankan quruxda badan aa u jeedin waa Soomaaliya. Waxaa ku nool dad fikirkooda u kala duwan sida waxaa kaloo jiro nin lagu magacaabo Maxamed oo ku magac dheer Maanaf. waa burcad ugu weyn ee magaaladaas. daroogada dawladda Malaysia ayaa la wareegtay sidee ku dhici kartaa marka inay la wareegto yaasi ka dambeeyay miisoo waagi kartiin waxaan u baahanahay ragga daroogada dawladda Malaysia gacanta ku galiyay waa inaad ii soo ogaatiin sida uu dhaqsiyaha badan raggaasi aniga ayaa talaabo sharci ka qaadanayo soo waxaad gartay ma mudana waxaa jira dalka jooga oo warkeena gudbiyo daroogadeena oo dawlad gacanta ka saaro sidee ku dhici kartaa ma iisha kartaa inay hantideeda wixii dawladda gacanta loo galiyo yaasi ka dambeeyay hadda la ii soo ogaa sida uu dhaqsiyaha badan mudana waxaa jira rag annaka nala shaqeeyo oo sirteen ugu sidee ku dhici kartaa ma iisha badeecadina meel mudana ragga hadda aada halo aga adii saaxiibka ma joogtid waxaan u baahanahay nimanka nayada shaqeysirta dawladda u gudbiyo mudanaha maanta wuu xinaaqsanyahay oo rag adii xasan waxaa rabaa adii xasan inaa arin shir in sheego waxaan rabaa inaa ii imaatiin meesha balanteena haajirta asku ma jirnay maanta niyow mudanee dib xunaya na qabsadaniyo rag badeecada gudbinayaan ayaa war iyo wariifnimo nala dib taagan ana agaayo يا اسكت تعتبر هذا سي لوخسي بدون سوغا شيت نيو مدنها نسو يعني ور انو نوها املينا مدنها وحوار waa ina noo sheey arin siro noo haya umaleena ina oo tagna meesha balanta ahayd mudanaha arintii la soo gudboonaatay ina wax u qowno rawaa umaleena saaxa oo adina ila hadlo soogo hadalka waa yiraahdo baro aniga waxa ka fikirooyaa arintii oo hadda koorn qabsanaysa Malaysia markaan badeecada u gudbinayno marka taas ilaa hadda maskaxdayda ka beelaa marka ay la yaabeen haddana saaxib ina wax ka fikirti ma ayna keenniyo